ciidamada dowladda Soomaaliya loo aasaasi doono oo nabadda loo aasaasi doono waa inay noqdaan ciidamo aan dowladdu kaligeed ayaan xulan waa inay noqdaan ciidamo aan qabiil ku soo dayasho aan ku sugnayn ciidamada tan waa ciidamada la rajaynayo inay Soomaaliya xagaha u dhigaan markay dhismaan oo ay noqdaan kuwa qaynuunka ilaalinaya oo ay noqdaan kuwa wax yaqaana oo ay noqdaan kuwa maskaxdooda lagu dhaadhicin karayo laga daadejin karayo qabiil uleeyahay ku dhisnay ee qaran ay u shaqaynayaan ciidamadaas waa inay noqdaan dad la og yahay oo khubaro ah ay xushaan oo ayagu ay keenaan ee aan dowladdu gooni u magacaabanin dowladda Soomaalida oo ay gooni u magacaabanin inay noqdaan way marka ciidamadaas waa inay yimaadaan waqti dambe oo ayuuda ay timid Itoobiya ku meesha ka baxeen muxuu ahaa dowladda tan hadda joogta hadday iyadu sii joogayso dadkii kale oo yimaado oo xabadda la joojiyo markii lagu heshiiyo kala ay wax ku leeyihiin inay ku dhismaan weeye ciidamada mustaqbalka imaanaya oo inay ku dhismaan sidaas oo kale habka dowladeedka oo hadhowto dowladdan muddadeedu hadday dhammaato la rajaynayo Soomaaliya inay noqoto hab dowladeedka ay ku dhismi lahayd waa inuu noqdaa mid dadweynuhu ka qayb galo oo uusan noqonin mid dowladda hadda joogta oo 2 sano u hartay anigu ma aan leeyahay 2 sano dowladdan alla baabi'iyo waxaad moodaysaa inayan practical inayan ahayn bad moodaysaa laakiin in la hadii iyagoo waa ogol yihiin haddaynu ogol lahay in hawsha lala qaybsado oo la isula yimaado oo xabadda la joojiyo aniga waxaan u maraynayaa xal baa la gaari karaya ayaa la gaari karaya marka shayga aan ku celinayo waxa weeye hadalkayga way isaga tuntuntayo sida aan rabay uma dhisin shayga aan ku celinayo waxa weeye ilaa inta arintu joogto ma wadaadada meesha qabsanaya mise dowladda meesha qabsanaysa labada alternative labadaas ay tartamayaan waxaad ogaanaysaan iga gunudan waxa weeye dowladda Mareykanka iyo Qarbiga oo dhan iyo wixii la jira iyo dowladaha Carabta xataa ruuxo وهذا خطبتي إنك يقول رئيسي والأركي رئيسك هالك الشركة وعمبارين يدولها عربتها ولا قرجين هي ما إيه يدولها عربتها كل جودهن قربي بيكون حريين كل جودهن وإذا عداه كذا لا تجعل ميان سعودة عربية بعدوكتين مصر بعدوكتين كل جودهن وإذا عداه والله لا دريا كويت بعدوكتين قطر بعدوكتين عرب أميريت بعدوكتين كل جودهن وحال جودة سمية هوي إن عن محوها انقلاب أو دين محوها سيف ما محكوك وصلنا إياه واحد مودة يسألني حوجة عدكت مركا عرنت عن دينته وقت بيلا هاي ومدة الصومالية مسلم وهي آخر كذا واحد يسوق لما عندهم تعدي أيضا لا يستقبحوا ويصدر شوين عدالة وأي ماذا ودد وذاته وكعانو أنت حسب سماستان أيران أنا وحنا ربنا الدين تروح له ما عمله وانتخاب كجلام بلاد فهم كعين كاسة وحنا لقيا بعد الآن فترة الآن يقعد كان كريان القرار يدورش ومدي الجيرية محوها كن يسقال بقول يسقال سنة يوم ما قام وحي هيد أيوه لقول في ذي ويجو انتخاب كقعد كعادي حيوق الله قاضي وكلا ويا إمارة الدين نظام كنا وحول بتاع بهين عبار مرك هذا الكي قالوا وحنكسر قبل يا وحوي حل إن النضون ويه ومدة الصومالية وهيكبر عبطان ولا لا هذا معارض كرسمي أو أما ودك جذوي سجوا شوغة أما أسمرت شوغة وهذا قار كذا في الجيران إلى لا شوغان أنا وحياتي إن إسلسوا قالوا ويه حيشة حوق هديبة مسهلنا تدخل على ما نيانين هلو تآخر كذا ولا دالية ولا تندولة روح إيو إثيوبيا إيو وما يستعني راحوين لكن ما دام يسكت تيرين يان دولة كروح حوق له أو العاد إيو هب إيو وحو بوصعون يان
waxa dhimanayana markay dhintaan humanitarian xoogaa lacag aanu dirayna laakiin shuqulkuma ay leh marna ayagu ogolaan maayaanin iya alternative-ka xukuumaddaas inay noqdaan wadaadda inay meesha qabsadaanin marnaba ma nacayso oo marka kale waa caddaana marka xaqiiqadan inaan dareenno weeye in la duqoloobaba maaha wax walba xeel bay doonayaan waqti dambaa inoo harsan waa imaanaysaa waqtigeena iyadoo aan dhiigdaadan iyadoo aan waxba dhicin intiqaab iyo nidaam caadiya baa lagu qaadanayaa dadku haddeer waa dareemeen 6 biloodoo wadaadadu ay muqdisho iyo meelihii kale ay joogeen iyo jowhar iyo muxuu ahaa beledweyne xataa mar dambe Kismaayo meesha la yiraahdo buura kabo kulli dadku waa dareensan yahay xasilaantii iyo wixii dhacay shayga kale aan u malaynaya dad badan inaan wili hadalkooda ka maqlin oo nimanka wadaadada oo bilad joogta ay ku helayaan gadaal waa sanbiriir xidheer waa ka xumahay ayaguna waa dareensan yihiin baan u malaynaya shayga bilad joogta ay ku helayaan oo aan dad badan u dareemin waxa weeye jaadka ay joojiyaan geedka qaad iyo jaad waxoodan shayga bilad gooniyo joogta weligeeda la huuray oo aanan filayn dad kale oo joogay kala sameyn karaba inuu jiro jaadka ay joojiyaan oo inta ayaamii hore xoogaa la kackacay markay yiraahdeen annaga culumaanu nahay diintaas ma yeelay dadku waa ogolaade ma malaynaysaa nin how many billions oo billions baa ku leeyahay maaha millions of dollar ya oo lacag dowladeed dhiig muxuu ahaa dhigid dowladeeda oo Ethiopia iyo Kenya bilaash free ay u qaadan jireen wadankooda u garan jireen haad currency intaas oo baaqatay ma malaynaysaa nin hadda waxa laga yaabaa dadka in wax garanaya oo ma economics yaqaana ayaa macnaheeda maxay tahay haad currency-ga dowladda Soomaalida waxa dollarka dadkeena aan ka joogno inuu Soomaaliya loo diro dad lagu caawimo aakhirkooda waxay isugu dhamaadeen Ethiopia iyo Kenya inay u noqdaan ayagoo haad currency ayagoo ah maxaa yar shaad weey oo adan ayagu hadii waxba ka soo gadanay adiga lacagtaadi baad siinaysaa ayaad siinaysaa waa la quuri karayni marka Charles baynu haysanaa muslim baynu nahay diinteena inaga iskale wadankeena inaga iskale waa imaanaysaa waxa karuyeena degdegin arrinta maanta ina taagan xeesha inuu uga baxno weey marka midda hadda xeesha aniga aragtida ugu horeysa waxa weey aynu adkayno dawladda Afrikaanku inay yimaadaan aan ogolaano test baynu saaraynaa marka waxaynu saaraynaa test Mareykan markii la yiraahdo waa ogolahay bal inay ogolaadaan iyo in kale yaa la ogaanaya daacadnimadeeda la ogaanaya iyo dawladaha muxuu ahay European Union inay daacad ka yihiin arrinta oo mar walba afka ay yiraahdaan waxaanu rabnaa inay yimaadaan dhawaad saad maqlaysiin dawladaha Afrikaanu inay yimaadaan baanu rabnaa test hal saaro la firaan la iga noqdo. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.